بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan mar labaad kuna soo dhawaada cashar cusub. insha allah casharkeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa sidii aan informationka computerkeena u heli lahayn. tusaale ahaan waxaa dhici karta in badanoo inaga mid ah inaanay garanayn windowska versionka ugu duuban, waxaa la yidhaahdo inta GB ee ramkiisu yahay, sidoo kale information guud oo ku saabsan computerkiisa. maanta waxaan qaadan doonaa markaa sidii information fara badan computerkeena aan uga heli lahayn hab fudud. insha allah waxaan soo furan doonaa marka koowaad si aan u sameyno file explorerkeena. waxaad kusoo furan kartaa iconka adoo click siinaya. sidoo kale waxaad isla qaban kartaa keyboardka Windows iyo E ku keenayaa daaqadan. waayo si aan marka informationka u tagno waxaan right click siinaynaa computerkeena this PC. informationkana markaa inoo soo baxay kadib waxaan ka dooranaynaa ka u hooseeya oo ah properties baan click siinaynaa. kadib waxaa inoo furmayaa daaqadan waxaa lagu soo koobay information aad u muhiima oo computerkaaga la xidhiidha. saan ujeedno wuxuu u qaybsamay dhowr qaybood oo muhiima. qaybta koowaad waxay la xidhiidhaa editionka windowskaaga ama nooca windowska aad isticmaalaysa. tusaale ahaan computerkaan isticmaalaya iminka windowska ku duuban waa Windows 10 Professional. waa lagu kala duwan yahay windowsyada. kan waxaa ku duuban waxaa la yidhaahdo Windows 10 oo Professional. halkanna uu kaa tusaya windowska ku duuban. haddii Windows 8 ku duuban yahay halkan uu kaa tusaya nooca uu yahay, haddii 7 ku duuban yahay and so on. sidoo kale qaybtan waa qaybta systemka la xidhiidha. waxaad ka helaysaa information la xidhiidha processorkaaga, memorygaaga, system tapekaaga, waxyaabahaas oo dhan. waayo processorka computerkaan isticmaalaya iminka waa Core i5, CPU-giisuna waa 2.5 gigahertz. sidoo kale memoryga ama ramka ku jira waa maxay? waa 4 GB. operating systemka uu qaadan kara ama basic processorkiisuna waa maxay? system tapeka ama nooca computerka uu yahayna waa 64 bit. halkana waxaa ku jira qaybta saddexaad computer namekaagii iyo waxyaabaha la xidhiidha. computer namekii magacaan uu siiyey waad bedeli kartaa insha allah casharadana dambe sida computerka magaciisa loo bedelo baan ku qaadan doonaa. descriptionka computerkaaga waa kusoo dari kartaa waxyaabahaas oo dhan. qaybtan waxaad sameynaysaa, waxaad ka eegaysaa activationka windowskaaga. windowsku miyuu kaa dhacay, ma ku activate garaysan yahay, xagee wax kuu marayaan, waxyaabahan oo dhan baad eegi kartaa. tusaale ahaan kanaan iminka isticmaalayo active ma aha. laba siba waad ku arki kartaa. halkan is not activated buu kusoo saaraya. sidoo kale halkan samohiye waxbuu soo saaraya activate windows ku leeyahay. sadii kaaga tag activate garee. sida loo activate gareeyo isna insha allah casharada soo socda ayaynu kusoo qaadan doonaa. waayo iminka waxaan fahnay information guud oo computerkeena la xidhiidha iyo qaabkii aan u soo saari lahay, nooca windowskaan isticmaalayno, processorka, coreka computerkeena, ramka ku jira, system tapekiisu ma 34 ba ma 64 ba waan kala ogaanay. sidoo kale computerka magaciisa windowska ma activate ba mise waa inactivate. insha allah waxaan filayaa inaad fahantay. السلام عليكم.